caaway mucaaradku gambarka waa u toosay Arsenalna mar kale waa la qabtay reer Liverpool hadday gambarku u dhigtaan waa iska sidaan hadda Arsenal caaway gambarkii waa u qabtay Arsenalna Chelsea waxa ay gelisay ciyaar barbardhaca Arsenal caaway kabaha ayaa lala dulgashtay sida runta ah kulanku wuxuu ahaa mid heer sare ah ma laga filayn Chelsea bandhigan oo kale inay qaadan karto maadaama Arsenal caaway farx dile ay ku fakatay runtii kulanku wuxuu ahaa classic aanu nimaano kulanku half time-kii hore hal gool ayaa la dhaliyay taas oo la diiday oo hubseed la dhahay 32 daqiiqo markii ay mareysay foul ayay heleen reer Arsenal taas oo kubadda lagu xaday hase ahaatee Havertz uu dhaliyay far ayaa la aaday walow gool ay u badnayd hase ahaatee waa la diiday half time-kii eber ayaa lagu kala aaday soo laabashadii half time-kii dambe 60 daqiiqo markii ay mareysay Gabriel Martinelli ayaa dhaliyay kaasoo Odegaard caawinta u lahaa sidaas ayay Arsenal hogaanka ku qabatay hase ahaatee 10 daqiiqo kadib Nato ayaa ku shubay kaasoo Enzo Fernandez caawinta uu iska lahaa half time-kii dambe wuxuu ahaa mid markasta Arsenal ay chance helayso sidoo kalena Chelsea ay helayso 77 daqiiqo markii ay mareysay Bukayo Saka ayaa ka dhaawacmay Arsenal kaas oo garoonka laga saaray sidoo kale Havertzna waa uu dhaawacmay hase ahaatee Havertz awood wuxuu u sii yeeshay inuu ciyaarta sii wato Arsenal 1-1 ayaa lagu celiyay taas oo ka yeeshay in Arsenal ay still 19 dhibcood tagto horyaalkana hadda 9 dhibcood ayaa laga sareeyaa halka Man City oo Liverpool la tartamaysay 5 dhibcood laga sareeyo haddaba reer Man City iyo Liverpool gambarku waa u toosay waliba sidii la yaqaanay Arsenal kulankan waxay ka dhaxashay inay 2 dhibcoodna lumiso Bukayo Sakana uu ka dhaawacmo haddaba dhammaantiin waa mahadsantiin muuqaalkan hadduu ku soo gaaray waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto oo ka mid noqoto bahweynta aan halkan ku saaxiibnay magacaygu Qobile Sports